taliyaha ciidanka lugta xoogga Soomaaliyeed Sahal Cabdullaahi ayaa soo gaadhay oo ilaa iyo xalay ku sugan deegaankan Shabeellada Dhexe. waxa uu sidoo kale taliyaashu ay ilaa iyo xalay ilaa iyo maanta ay howlgallo ay ka wadeen duleedka degmada Ceelbaraf oo dableydani lagu tuhunsan yahay in ay ku sugan yihiin. degmada Ceelbaraf ayaa sidoo kale laga qaxay oo la sawirada laga soo qaaday ay muujinayeen iyadoo uusan wax dadaba aysan dhex joogin oo halkaasi odayaal iyo caruur yar yar oo kaliya lagu dhex arkay. dadka deegaanka ama odayaasha dhaqanka ee deegaankaasi ayaa amar lagu siiyay inay soo qabtaan oo ay laamaha amniga u soo gacan galiyaan gacan ku dhiiglayaashan iskugu jira rag iyo dumarka ee baangadaha iyo qoryaha la ordayay muuqaalada iska soo duubay iyagoo wiilasha Soomaaliyeed ee askartaas si arxan darro ah u leynayo. sidoo kale odayaasha dhaqanka ee beelaha Xawaadle oo dhalinyaradan la laayay ay ka soo jeedeen ayaa soo saaray go'aano culus oo ka dhan ah talaabada ay kaga jawaabi doonaan falkii argagaxa lahaa ee wiilashooda loo geystay ama lagu dilay. waan dul istaagi doonaa xaaladda guud ee gobolka Shabeellada Dhexe iyo sidoo kale gobolka Hiiraan, dhaqdhaqaaqyada ciidan iyo sidoo kale howlgallada dawladdu ay wado, qorshayaasha ay qaateen iyo sidoo kale kooxahan nabaddiidka argagixisada aan waxba dhaamin ee falkaasi argagaxa leh wiilasha Soomaaliyeed ku laayay iyo meelaha lagu tuhunsan yahay iyo xogihii ugu dambeeyay ee degmada Ceelbaraf iyo guud ahaan Hirshabeelle ayaan dul istaagi doonaa. waxaan dhinaca kale iyadana mid iyo labo aan ka taaban doonaa go'aanka dawladda federaalka Soomaaliyeed ay ka qaadatay kasimid ahaanshaha ciidamada ATMIS ama ciidanka howlgalkan cusub ee midowga Afrika, ciidamada Itoobiya ee sanadka cusub iyo hadalhayn weyn oo ka dhalatay Itoobiya oo waji gabax kala kulantay danaceedii ahaa in ay ciidamadeedu ka mid noqdaan ciidamada howlgalka midowga Afrika cusub ee sanadkan 2025 ee hadda maalmaha ugu soo aadan bilaabanaya ayaan iyadana dul istaagi doonaa haddii alayno. soo dhawaada muuqaalka like saara, aragtidina nagu reeba qaybta commentiga. aynu ku bilownay waxaan ogsoonayn in maalin ka hor wiilal 7 ah iyo waa 6 la isku hayo oo ciidanka xoogga Soomaaliyeed ka tirsanaa oo ka soo jeeda gobolka Hiiraan oo ka soo jeeda beesha Xawaadle inay maleeshiyaad beeleed ay ku qabteen duleedka degmada Ceelbaraf. wiilashu maleeshiyaad mayna hayn, ciidan xoog Soomaaliyeed ka tirsan bay ahaayeen, ciidan qaran bay ahaayeen, fasax bay soo qaateen, eheladooda iyo dadkooday u socdeen, si nidaama ayay kaga soo baxeen furimahoodii iyo goobihii ay difaaca kaga jireen. wiilashii noocaas ahaa maleeshiyaad beeleed ka soo jeeda beesha Abgaal oo weliba Xasan Kuhayba madaxweynaha jamhuuriyadda Kuhayb ah ayaa wadada u galay. wadada loo galay waa la qabtay, gaarigii baa lagala tegay, meel baa la geystay, dib baa loo xidhay, diriiskoodii baa dib loogu xidhay, ayagu qoriyay wataano way la kor istaageen. gabdhana midiye intay u dhiibeen ayay dhaheen galgaliya. arba haddana video aqli xumada video ma haddana la duubaya. bal adigu cadaawadda intay leegtahay dhamir xumada waraway islaamnimadii, waraway bini'aadamnimadii, waraway hawra xaggay aaday. waa arinta la tacajabay weeyay ruuxaantii. muuqaalka markaan daawaday waan argagaxay oo waan qaadan waayay. adigay daawanayaan inaad qaadan weydo waa macquul oo weliba qalbigaadu u gilgishay. dhacdaa argagax badan. wardad waa isdilaan, Soomaalidu waa isdishaan. dagaal xabad qof maxaa weeye intaad dagaal wada gasheen aad isku disheen waxba ma ahaba. intaad wiil ciidan Soomaaliyeed oo kaarkiisi wataad soo qabato aad tiraahdo Xawaadle aan isaynaa, reer hebel baan isaynaa, oo intaad gadaal u xidhato, gadaal waa masaafur aduu ku dhex maraya. waa ciidan Soomaaliyeed, waa masaaf isagu waxba kama oga dagaalada iyo waxa. intaad gadaal u xidhato aad tiraahdo haddana gabadh tooriyo war hadday xabad dhag inta ka seensaa ku leynaa waxbay ahaan lahayd. gabdha intay tooriyo u dhiibeen waxay dhahayaan galgaliya arbaab fujuq, qofkii nool fujuq, kolba meel bay ka gelin fujuq. waa dumar ya, dumarka naftirkooda waxay noqdeen bahalo caadi ah, bahalo caadi ay noqdeen. dhacdadaas markaa dhacdo argagax badan oo dhinacyo badan taabatay oo hadalhayn weyn dhalisay bay run ahaantii horta noqotay. beesha Abgaal baa sameeyeen, Xasan beeshiisaa sameeyeen, madaxweynaha Soomaaliya reerkoodaa sameeyeen, ilma adeertii baa sameeyeen, Xawaadle lagu sameeyey. horta way dhacdadaas halkaas aan u tiirino oo sidaa aan ula soconno. arrintaa markay dhacday
ciidanka Soomaaliyeed bay saameyn ku yeelatay boqolaal ka tirsan ciidanka Soomaaliyeed oo weliba deegaanadii Abgaal ay degahayeen difaac kaga jiray oo argagixisada ka dhicinaya shacabka Abgaal ayna si fiican baasho u bayaaminee ayaa soo baneeyay furmihii shalay waxay la xalay soo yaasaanba deegaanka Daayif oo ka tirsan gobolka Hiiraan ayaa maanta geel loogu qalay oo lagu soo dhaweeyay oo hadda ay ku sugan yihiin dadka deegaanka gobolka Hiiraan waliba gaar ahaan Xawaadle go'aano culus bay soo saareen ilaa iyo habeen hore shirar baa socday odayaasha dhaqanka iyo bulshada qaybaheeda kala duwanba waxa go'aan lagu gaaray inaan waxa weeye laga sii aamusi doonin meeshana dawladda aysan jirin Xawaadlana talaabo ay ka midaysan yihiin ay qaadi doonaan ilaahay horta waxaan ka rajaynaynaa dhiig lagu gudayo wax faa'iido tari mahaye haddaan iyagii gacanta geliyay waxa weeye gacanta geystaan la soo qabanine ilaahay horta waxaan ka rajaynaynaa in colaadaasi uu damiyo haddii aad Xawaadle intay duulaan kuwa kale oo dhacdadaaba waxba ka warqabin oo Abgaal ah ay gab iyagana ka soo siiyaan de maxaa la faa'iiday wax la faa'iiday ma jiro marka ilaahay waxaan ka rajaynaynaa horta inuu colaadaas uu damiyo muddo badan bay soo noqotay Abgaal iyo Xawaadle ay dhinacyo badan isku qabteen ilaahay horta waxaan ka rajaynaynaa ummadda Soomaaliyeed inuu kala qaboojiyo ayaan Allah ka baryaynaa Xawaadle go'aan bay gaadheen talaabaan qaadaynaa bay dheen lama oga ma halkii baa lagu duuli ma Ceelbaraf baa lagu duuli ma Jawhar baa lagu duuli ma meel kale lagu duuli lama garanayo Xawaadle waxay dheen anaga talaabo lama arag baa leeyahay lama maqal baa leeyahay laba arag ah ayaan qaadaynaa bay dheen odayaasheeda dhaqankana intaasay waxa weeye isla qaateen shirar baana socdo wali ay ku jiraan dhinaca dawladda federaalku talaabooyin adag bay qaadeen shalay waxaa Jawhar soo gaadhay taliyaha ciidanka lugta xoogga Soomaaliyeed iyo taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ayaa halkaasi soo gaadhay iyo waliba saraakiil kale hawlgalla ilaa iyo xalay ka socday oo la waday ilaa iyo haddana waa socday oo taliyaha ciidanka lugta iyo waliba nabad sugidaba waxay xalay ku bariyeen intay Jawhar shirar ka qabteen bay ka duuleen xalay duleedka Ceelbaraf bay ku dheelmadeen ilaa iyo haddana waxaa la xaqiijiyay inay halkaa ku sugan yihiin waxay halkaa shirar ku leeyihiin odayaashii dhaqanka deegaanka Ceelbaraf oo dhacdadan foosho xun ee argagax ay ka dhacday waxaa amar lagu siiyay odayaashu inay soo saaraan gacan ku dhiglayaashaasi dhibaatada geystay hadday soo saari waayaan talaabo ay iyagu qaadayaan oo ciday hadhow wax gaadhaana aan loo qabsanayn inay qaadi doonaan ciidanku ay lagu fasixi doono turka waxay arkaan madaxa ay ka toogan doonaan odayaashii way iska daba wareegaysanayaan hadda waa qaade iyo qariye sababtoo dableydan waxa raashinka siinaya waxa seexinaya waxa weeye daawada u geynaya waxa dhaawicinaya waxa xoolaha u soo ururinaya waa odayaasha dhalinyaradan iyo cidna waxba siin mayso waxa wax siinaya waa odayaasha weeye odayaasha wax siinaya markay ma doonayaan in la soo qabto waa wiilashoodii way qarinayaan midda labaad dhalinyaradan iska badaaba wiilasha naagahan midiyaha la ordaya ee ragga galgelinaya magaaladay dhex joogaan tuulooyinkay dhex joogaan waa la yaqaanaa waa ina hebel lama soo qabanayo talaaba marka la sugayaa ciidanka Soomaaliyeed inay qaadaan hawlgal xoogan baa socda degmada Ceelbarafna waa laga qaxay ciidankuna way ku hareereysan yihiin ilaa aagaas oo dhan baa hawlgal ka socda mas'uuliyiintiina halkaa bay ku sugan yihiin way ka go'an tahay sidii gacan loogu soo dhigi lahaa waynu eegi doonaa wixii ka soo kordho muuqaaladeena dambe ayaan idin kula wadaagi doonaa run ahaantii dhacdo argagax badan ayay ahayd dhinaca kale dowladda federaalka Soomaaliya ayaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay ka jeedisay in Ethiopia aysan qayb ka noqonaynin hawlgalka cusub ee midowga Afrika ee nabad ilaalinta Soomaaliya ee bilaaban doona 2025 bishan hadda inagu soo aadan ee hadda soo bilanaysa maalmaha yar ay ka dhiban yihiin dowladda Soomaaliya mowqifkeeda ayay adkaysay heshiiskii Ankara ka dhacay ee Ethiopia iyo Soomaaliya waxa si weyn loo hadalhayay oo dadku bulshadu ay hadalhaysay in Ethiopia loogu ogolaaday in hawlgalkaas ay qayb ka noqoto balse waxaad moodaa in jalaafato siyaasadeed oo aad iyo aad u xanuun badan Ethiopia loo dhigay Ethiopia naftarkeeda waxa isku diyaarinaysay in hawlgalka loo ogolaan doono oo ciidankeedu ay ka sii mid noqon doonaan laakiin halkaas khiyaamo siyaasadeed baa horta dhabarka dhulka loogu dhuftay horta Ethiopia
soomaaliya guul weyn bay arrintaa ka gaadhay golaha ammaanka ee qaramada midoobeyna qaranka ayay ku duugeen inaysan etoobiya ka mid ahayn wadamadii horay ay soomaaliya u gudbisay ay qeyb ka noqon doonaan marka jallaafato siyaasadeed ayaa horta halkaa ka soo gaadhay etoobiya xagga etoobiya warka kasoo bixi doona lama oga maadaama horay ay u tiri annaga kama bixayno gudaha soomaaliya oo ciidankaanadu way joogayaan ciidan 6,000 ku dhawaad lagu qiyaasana soomaaliya ay ka joogaan laakiin lama garanayo go-aanka ay qaadan doonaan dowladda federaalkuna horay bay waxay u tiri etoobiya waa inay sida ugu dhaqsiyaha badan ay uga baxdo gudaha soomaaliya oo gebi ahaanba ay ciidankeeda ku celiso dalkeeda iyaguna horay bay u diidanayeen annaga ciidankaanadu kama baxayaan oo soomaaliya ummadda soomaaliyeed bay wax u hayaan ilaa iyo dhowr iyo 10 saldhig oo ciidanka etoobiya ay ku sugan yihiin ayaa waxaa la sheegay in sida ugu dhaqsiyaha badan ciidanka 12,000 ee ATMIS inay bedeli doonaan oo ay buuxin doonaan goobahaas ama ATMIS ayna dhina UNISOM ee cusub magacii waa laga bedelay si kastaba dowladda mowqifkaasi ay qaadatay ummadda soomaaliyeed aad iyo aad bay u soo dhaweysay oo waxa weeye falcelinta ay ka sameeyeen ayaa noqotay mid lagu soo dhaweynayo mowqifkaas oo gebi ahaanba meesha looga saarayo ciidanka etoobiya ee ku sugan gudaha dalka soomaaliya waynu eegi doonaa wixii kasoo korra muuqaaladana dambe ayaan idinkula wadaagi doonaa hadduu alla